munaasabad si heer sare loo soo agaasimay isla markaana lagu xusayay maalinta caafiska Soomaaliyeed oo ku aastaysan 28 bisha 7 sanad waliba ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. munaasabadda waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya, waxaa kaloo goobjoog ahaa dad aad u fara badan. munaasabadda dadka ka soo qayb galay waxa u badnaa haween. sababtu waxa ahayd sanadkan munaasabadda waxa aad diiradda loogu saarayay haweenka iyo iscafinta ama haweenka iyo nabadda. mas'uuliyiinta meesha ka hadla ayaa waxa ay jeediyeen khudbad aad u qiiro badan oo lagu muujinayay qiimaha ay leedahay iscafinta. weli ma ina arag 10 sanaan raadinayna weli ma arag qabiil ka soo istaagay yiraahda aniga ayaa dambi galay afis inaan qabiilka kala weydiisto ayaa qasaba. qabiil walba waa victim asaga la dhibaatay waa isku ognaa taas beentaymiya ma jirto qarashadaas dhici ma doonto weligeed soo saxma xageen marka u doonaa nabadda shirabada la sameeyay la kulmay dabujisiin badan la sameeyay laakiin markaas waxaan ku celceliyaa yaa shiray yaa isku yimid dadku waxa iska hadlayay dadku waxa iska dilay kuwa wax dilay kuwa laga dilay isku ma imaan marka xafladahan oo kale waa muhiim waxaan kula talinayaa tiimka cafis oo aniga ka mid ahay insha Allah taala waa inaan sameynaa in la sii wado in laga dhigo joogto laga dhigo in bilkaas la shiro xafladana la geeyo xaafadaha la geeyo degmooyinka team afis anaka ku hadlaya wasaaradda qoyska waxay idin qorsanayaa inay oo afiska la geeyo guri to guri magaalo to magaalo tuulo to tuulo si Soomaalidu ay isugu afiso. dhanka dawladda waxaan ololeynaynaa maalinta cafis 28 Juulaay sidii ay ku noqon lahayd maalin cafis qaran ah oo wadanka oo dhan saameyn toos ku yeelata oo ka mid noqota maalmaha waaweyn ee qarankani u leeyahay. halku dhageena sanadkan waxa weeye dumarka iyo nabadda iyo cafiska. sababta aan halku dhageesa u qaadanay waxa weeye dumarka oo astaanta nabadda ah ayaa waxay ka mid yihiin dadka sida tooska ah iyo sida dadban ay dhibaatada u saamayso. marka waxaan rabnaa dumarka Soomaaliyeed in ay nagala soo qayb galaan maalinta bishan aan ku jirnay 30 tahay socod nabadeed oo aan qabanayno. tan kale qof walba idin ka mid ah waxa weeye isku noqo qoyskaaga qofkii aad qaniinteen cafi guriga hays cafiyo walaalaha hays cafiyaan odaga iyo hooyada hays cafiyaan dariska hays cafiyaan xaafadda hays cafiso degmada hays cafiso magaalada hays cafiso qaranka Soomaaliyeed miyi iyo magaalo waa inay cafiyaan. markay munaasabadda soo gabagabowday waxaa la abaalmariyay qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo bulshada howlaha muhiimka u haya. Sharmaake Abukramin warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.